waddan baan ku ogay laakiin hadda nin kale ahaan lahayd wallahi inaan kugu wareejiyeen maanta baarakallah wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Somaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf ayaa dhagax dhigay dhismaha iyo dayactirka dugsiga hoyga ee Salaxley. Xafladda dhagax dhigga dugsiga hoyga ee Salaxley waxa wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ku wehelinayay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur, wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo horumarinta madaarada mudane Yuusuf Kaysa Cabdullaahi iyo maayirka degmada Salaxley injineer Maxamed Cabdi Haariye. munaasabadda dhagax dhigga dhismaha iyo dayactirka dugsiga hoyga ee Salaxley ayaa ka qabsoontay xaruntii hore ee agoomaha ay maamuli jirtay hay'adda Geeska Afrika iyo dhismihii hore ee agoomaha Salaxley. haddaba dib u dhiska furitaanka dugsiga hoyga ee Salaxley ayaa waxa uu ku jiray qorshihii xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee 100 cisho u horeeya. waxaanu joognaa munaasabadii maxay ahayd dhagax dhigga iyo wareejinta iskuulka boodhanka maxay ahayd iskuulkii hore agoomaha oo alla khayr ha siiye maxay ahayd hay'adii iyo Sheekh Maxamed Cali Geedi iyo intii ku soo tabacdayba ay maanta garteen in looga faa'iideysto maxay ahayd dadku ka faa'iideystaan kuna wareejiyaan xukuumadda maxay ahayd wadajir iyo waxqabad. iskuulkan waxaynu samaynaa markii hore agoomaha miyiga oo dhan baa loogu talagalay xalaali xamiiga oo dhan agoomahooda ayaa loogu talagalay boorama laga keeni jiray meel walba laga keeni jiray beriga ay ka dhacay dagaalku ka dhacay xaggii miyiga agoomihii beriga xagga dadkoodii halkaa ku dhinteen halkan baanu keennay wax ku barnay qaarna waxaanu geynay xaaxi marka goobtan waxaan loogu talagalnay in agoomaha wax lagu baro marka waxaa jeclay wasiirka inaan ku wareejiyo macalin wasiir dugsigii iga guddoon maanta waana ka wada shaqaynayna haddii ilahay ka dhigo insha allah khayr badana way kugu ogi adigoon kugu wareejiye lakiin cid kale maanta kuma wareejiyeen sababtaan kugu wareejiyey wax kale maaha waxaan ku ogay laxajaalaan ku ogay wasiirka waxaashaala diin baan ku ogay laxashaala wadan baan ku ogay laakiin hadda nin kale ahaan lahayd wallahi inaan kugu wareejiyeen maanta baarakallah aad iyo aad baad umahadsantahay waana ka wada shaqaynaa oo kama shaqaynaa insha allah mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa maanta Sheekh Maxamed Cali Geedi oo runtii dugsiga aynu joogno ee taabka badan ka muuqdo dhulka badan reserve-ka ee ku habboon waxbarashada hoyga weliba ah inuu maanta wasaaradda waxbarashada ku wareejiyo runtii karaamo iyo sharaf bay inoo tahay dhammaanteen isagana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka adigii hay'adaadii qarni Afriqiyaba Allah idinku daro xogta waxbarashada degmada Salaxley wasiir haddii aan ka siiyo xog degmada Salaxley waxa ka furan 19 iskuul oo hoose dhexe iyo hal dugsi sare iyo hal dugsi oo waxbarashada dadbana waxa ka hawlgala 95 macallin oo 50 ka mid ah ay gunaysan 40 ka midna aanay gunaysnayn kii agoomaha oo dawladdu ay la wareegtay oo la doonayo in laga dhigo boardingkii Salaxley oo isugu jiray iyo maxadkii labadii oo isqaabilsan runtii halkan hadda aynu taagannahay marka la soo galo waa goob aad u weyn oo siday u samaysan tahay iyo intay leeg tahay ay yar tahay meelaha degmooyin ka samaysan tahay sheekheena oo suurtageliyay in iskuulkii Salaxley ee dayacnaa noloshii dhalinyarada ardayda ku noolayd aan ka warhayaan ugaasay ahayd iyo dayaca ka muuqday iskuulka aakhirkiina xidhmay in loo helo iskuul iyo goob uga wanaagsan dhalinyarada deegaanka waxay ahayd uun adeegii bulsho ee xukuumadda laga rabay marka waxa hakrado man anigu qabay ama ay tahay xukuumadii hore maanta laakiin isbedel ka yimi hordhiciisa waad aragtaan waa ka waxqabadka ama political programkii xisbiga wadani ayuu iskuulkani ka mid ahaa in 100 cisho hore dib loo furo maadaama intii xukuumaddii hore ay gacanta ku haysay uu xurmay tii baan u soconnaa wasiirku nagu hogaaminaya insha allahu bidmillaahi kariim dibna u xurmi doono hadduu ilaahay yidhaahdo adnaqayaa Sheekh Maxamed Cali Geedi runtii iyo hay'adiisa oo Somaliland waxay ka qabatay hay'adaasi runtii waxay dawladda qabtaana inta Somaliland min bari ilaa galbeed wax qabadka hay'adaas samaysay qof kasta wuu ka dhirigsan yahay
oo runtii aan isleeyahay dowlad oo ku gacan adeegay in macadkan aynu maanta iyo iskuulkan boardingka ah inuu shaqeeyo oo jiro oo joogo maantana ay noqotay inaynu kala wareegno sheekha oo mas-uuliyaddii xukuumaddu ay u xil saarayd awalba inay iyadu howlahan mas-uul ka noqoto inaanu maanta xukuumad cusub ahaan oo qorshaha iyagu yahay dee magaca naloo bixiy buu yahay wadajir iyo waxqabad inaanu nahay u soo jeesno ummadda inaanu u qabanno wixii ay xaqa u leeyihiin kii halka jooga iyo kii meel kale joogaba waxaan xaq noogu leeyihiin inaanu siino waxbarasho inay helaan goob waxbarasho ay wax ku bartaan inay helaan waxbarasho taya leh in loo maamulo si wanaagsan saddexdaa qaybood bay u kala baxdaa wasaaradda waxbarashada gebigeeduba marka in halka maanta la dhagax dhigo oo macadkaa iyo iskuulkaa isku jira ee diinigaa la habeeyo oo la dhagax dhigo lagana shaqeeyo siduu u soo saari lahaa arday taya leh oo markaa isla markaana maamulkaasna laga wada shaqeeyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii